mukhtaaro aad baan ku salaamayna وعليه السلام يعني بشير ثاني channel كيسات بدي سو دوين أنا ما توحد شغلنا نورث لندن وقوي مقالة لندن وور جرين وحكد عيادها بشيل كاب under 16 كيوث كاب وحوية سنة كم حيارة يا كوا حفر بدن all of you كيس جيمي قارح تعمل لك يجي بشراء وحنالك باينا نبي طبعا كوحات all under 16 وعيال كيسوا معلي ذا كرنا نقراش فوتبول كيسوا بلونه مرة دمدو ينو بلا بس عيال تقول هذا كرنا كوفيد واحد حرنت هاي دولار ما ماشي دولار حلسة إنه مرة دين دهشيل قام إنه يدهوي كودي دولار كده دولار كده دهشيل سماها كودي ونلا سعون إنسان هل كان كوب كمردو ينو بلا ما يا كوب قروح بدن بداون إنسان كوحيبان أورجنايز كرينا أنا قروح ذا سعودة الروتين بالهم كده يارسا future players كي. My name is Amir Hasi. Amir Hasi. I play for Thai United, and I think we're going to win the tournament. I think it's going to be hard. Inshallah. But I think the team, inshallah, we're a very good team, and I think we're going to win. Yeah. Yeah, good message. Magacaagu Abdullah, yeah. And what team? What's the name of your team? We play for Tower United. Tower United. So, do you think you're going to win the game today? The tournament. We'll try our hardest to win, inshallah. Yeah, inshallah. All the best, mate. How are you feeling about the game today? I'm feeling good about the game today. I think we're gonna win. Are you gonna win? Yeah. Yes, of course. Are you gonna win the tournament? Yes, of course. We're gonna win the tournament. I wish you all the best, mate. I hope you win the game. Yeah. Sidaan idin sheegayba maanta waxaan ku suganahay garoonkan oo ka dhacayo tournament Soomaaliya. Waxa dhinacayga taagan referee-ga weyn magacaaga ii sheeg walaal. Sigi waxaad maanta lagu warantaa tournament-kan ka dhacaya xaafadan iyo waxaad ka filayso ciyaaryahanada. والله عيارته way fiican tahay horta dhalinyarta inta la isku keeno way fiican tahay marka we need to support them, help them out, and obviously this is a new generation taking over now, and then obviously as an adult we all need to support them somehow and develop them. والله markaana wayna tababarnaa ciyaartay tahay iyo sidaan halkaan ka socono iyo community-ga sanu caawin karno. Sanad walba ma qabataan. Ha sanad kasta inta badan ana qabtaa. Haye. Ma sha Allah. Shaqo wanaagsan baad haysaa. Marka wallahi way fiican tahay. Illa aruurtuna inay isbarato. Can you tell us about what team? What's the name of your team? We are Baraka FC. Baraka, what area are you from? Kensington and Chelsea. Okay, tell me, do you think you're going to win the tournament today? Obviously. Yeah? 100%, yeah? 100%. Good man, thank you. All the best. Suhaib Adaro, and what team are you with today? That's your guy, number 10 your guy. I play for the young age. What area? It's near Elfield. There's a park called Pims Park. Hey? Yeah, and we're the best. We won our league, innit? Hey? We won the league. We're too good for the league and that. Hey? What can I say? All due to my team. Really good. Coach Man. Do you think you're going to win the game? Of course, man. Yeah? We're more ballers. We win everything. So you're 100% sure that you're going to win it? I'm not 100%, but I'm 110%. What's your position? دحدة كعيار كرا. left. Hey? Marka maanta ma u malaynaysaa inaad badinaysaan? 100%. 100%. Hey? Imsa goal baad ku badinaysaan? Yeah. Imsa goal? How many goals? 7-6 maybe. 7-6 inshallah. Cool bay rajaynayna inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقاعد حوا يونس عبد الناصر عبدي. ما أنت حالة صعدة كوحدة النصار. حكي إن معنا ويست لندن. ما أنت أقول لسنا ناسفة عن. إمسا عيارات بعيارتين so far. لبو عيارات. ما بقى لبو دي بقى. لبو دوابق. باي هاي. How many games you got left? إمسا عيارات تدين هاري. والله رنتي ما أقول. هاي. حتى بقول. لكن ready وديار باتسي. ديار. بدينا سنة. إن شاء الله تعالى. هلو السلام عليكم magacaygu waa Cawaale Maxamed Cilmi waxaan ahay qaban qaabiyada tournament-kan Dahabshiil Youth Tournament ma sha Allah waxaana sanadkan sameynay Rise Project oo gudoomiye ka ahay markaas aad wada arkaysaa waxaan la joogaa tiimam kala duwan oo London iyo outside London ka wada yimid marka aad baan idin soo dhaweynaa 12 tiim baa ka qayb qaadanaya ma markii ugu horeysay aad qabateen ba waa markii ugu horeysay anagu qabanay laakiin hore u dhacday marka sanadkan anaga hawsha qaban qaadanayna wanaagsan baad haysaa waa maxay ujeedada aad ka
filaysaan in aad koobkan qabataan ujeedadu runtii waxa weeyaan in dhalinyarta la isku keeno fursad loo sameeyo maxaan ku dhahaa community isku yimaado dadku ay taageeraan inaynu muujino mataqaanaa dad isku xidhan oo mataqaanaa wax wada qabsan kara marka kubaduna waa wax runtii dadka isku keeni karta shaqo wanaagsan baad haysaan thank you very much assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay Bashiir walaal waan ku salaameynaa FC waan wadanaa waxaan ka soo qayb galnay Dahabshiil Cup runtana waxa weeye I think this is the second year la sameeyay dhalinyaro badan oo xaafadda Service Landa ka timid gaar ahaan Lusham ayaan wadnaa aniga Cabdisamed Ibrahim runtana koobkan waa koob dhalinyarada dhiirigelinaya waana runta waa koob qurux badan waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo soo abaabushay runta Mahdi dhammaan ragga magacyadooda dhan ma doonayaan qaar ilaawe maanta ma laga yaabaa in kooxdaadu badiso ma soo diyaar garowdeena anigu hadeen muhiimadu waxa weeye inay carruurtu enjoy garayso inay hesho koob dhalinyaro Soomaali ay ku ciyaaraan isku bartaan ee chance u helaan inay hoto nafsaan ay enjoy garayaan kulleena Service Landa waa lagu yaqaanaa inay kubadda markasta badiso shaki kama qabo yes guys for me tell me your name and your team's name My name is Jamal. My team is Wood Lane. We come here to win this tournament. Yeah. Are you 100% sure you're going to win the tournament? 100%. All the best. magacaygu waa Saki Cabdi meesha saar aragtida dhalinyaro badan baa isku keenay Right or left? Now let agent play on the right. London xaafado kala duwan ka so marka kubada wada ciyaarayaan bulshada ay isku keenaysaa ciyaar kuna isbaranayaan balwadi xaanada Nairobi ma garat marka sport waxa la sheegay waxa uu wanaagsan kubada My name is Anis. Anis, tell me what's the name of your team? What's your name? My name is Abdul Wahab. Abdul Wahab, yeah. Anis, tell me what team are you with today? We're with the Power League Ballers. Yeah. How many games did you play? We played 2 games. How many you won and how many you lost? Obviously, we won 2 games. Both games? Wow, amazing. And so what's your position? My position, I've been playing left wing, a bit of cam. I'm the goalkeeper, clean sheet, 2 games. Jeez, hey? Come on, made bad boy saves. So how many games you got left? I don't even know, I can't lie. Yeah, but you're ready. Yeah? We're going to keep winning. You're going to win this, yeah? Of course we are. Good man. I'm going to get the lag at the end. Yeah, lag, yeah? That's what I'm here for. Yeah, good man. All the best. Thank you very much. Waxaa taagan mid ka mid ah waalidiinta oo kubadda daawanaya walaal magacaaga noo sheeg magacaygu waa Istaahil Axmed Warsame maanta intaan waxaan iskugu imaanay ilmaha Soomaalida oo meeshan tareemo iyo match ku dheelahaya aad iyo aad aan ugu faraxsanahay organize-ka community-ga Soomaalida isku keenay carruurta Soomaaliyeed aad baan wallahi ugu dhiirigelin lahaa way ku mahadsan yihiin ilmaha wax u qabanaan Soomaalida aad iyo aad ilmaha habbi ugu faraxsiyaa su'aaladan ahana aad baan ugu faraxsanahay sidaad arkaysaanba waxa la soo gaaray waqtigii break time-ka ciyaaryahanada iyo dadkii daawanayeen waxa loo diyaariyay cuntadii sharaabkii iyo biyihii sidoo kale waxa la diyaariyay oo goobta la keenay first aid-kii ama gargaarkii degdega ahaa haddayba dhacdo inuu ciyaaryahan wax noqdo runtii si aad u sareysa ayaa loo soo qaban qaabiyay tournament-kan first time ay come on naga daa waxa soo kala niyow dhiigaan u kicinay kacay dhiigay kacay ma dhalan hadda koona la soo qaatay Suleyman degdeg u qaatay Suleyman wata ref come on ref use your host kana yellow card haystanin naga daa ciyaarta Superstar ku ashay ninkan ref Suleyman daliyay waka buya warwa ku soo qaaday Suley rageedi waa ninka meesha ugu awood dheer hadda ninka ugu laacibsan ya Suley halkan waxaan la joogaa man of the match ciyaartii u dambeysay waxa weeye waa Suleyman Yare Sakriye walaalkii coachna waa tababaray Suley wuxuu dhaliyay 2 gool oo aad fiican wuxuu ninkii meesha ugu yaraa laakiin dadka dhex mariyay ka muuqanay ciyaartooyga oo dham iyo ragga weynaa dham ka yaabeen Suley ka waran ciyaarta maanta
بسم الله الرحمن الرحيم مانت ولا فاحسن مانت عارت ديالنا سكريا لا عياري مانت سكريا كل عياري مانت يمسك كل مرة احسن هاي لابو بلدي ما شاء الله ما شاء الله احسن هاي ما ندمش انه خرب فيرست تايم كاغا لا عيارتو سومالي كيدز يو ايج كاغا ها فيرست تايم وانا لا عياري فو سمال تيميت كي هذا يكوكل تونس كوجران ما شاء الله ما شاء الله سكريا سولي adiga muddo dheer soo tababaray walaalka kaayar halkaad ka soo bilowday ilaa halka uu maray hadda kulli ma sha Allah adiga hooyo ka soo shaqeeyay hooyo waxa fariin ka soo shaqeysay adiga isaga wada ka soo shaqeysay ka waran maanta iyo wixii sulay ciyaar quraad soo bandhigay ma sha Allah si fiican oo ciyaaray hadda laba gool oo ciyaartan ilmo weyn oo la ciyaar sila uu jiriya soo jeeda laakiin sila diigu leeyahay dagaalama asama kasta xoro man kasta daliyo gool daliyo inuu tiimkiisa bariyo waan ku faraxsanahay ma sha Allah sulay mudoon sana sakriya dhaafto halka ka soo ciyaaray si yara dhaafto mise ها إن دافع ربان سكري. intee ma dhaafaysa ها إن professional Premier League كعيارة. Premier League Super Premier League ka ciyaaraya waan horna uga ciyaaray aad baa mahadsantiin Suleymaan yar waxaan leenahay soo barbaar ma sha Allah sakriya wal dhan waxaan ciyaarnay laba ciyaarood kaliya si weyn soo anaga badiyay tii laba soo waanay soo wali waxa saddex ciyaarood marka wali farq kama qodna فأنا أعرف فرق كم قضاء ويلس بقاري ها مركا كوح عيال بالي كبد عيالنا وضبط يا تقول سوين قبل أنت تاسع واحد أنت ورانا سلقة بصنبه سلقة عيالك سلقة بصنبه مركا إنك هو confident إن جيم كجيم وحنا مثلا هنا إنه كل رتين إنه عيال صوصة إنه كل أن وصل معك كين عادي مركا إن شاء الله خير يقول بيدي رتينا مقعد كوبلاوية يكوح ضبطه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوهت هلا أحمد ديري أو تكوح أو نوت سايت وما تنقصوا قريب قلني tournamentka lagu dhigayo New River anaga oo degan North London waxaan rajaynaynaa koobka inaan qaadno waxaan noo sheegay lacag fiican in la qaadanayo sidaas daraadeed oo maana oo ilmaha yarka entertain aan u sameeyno taas waa koobkan loo dhigay ma sha Allah waa mahadsan yihiin Daabshiil iyo qaban qaabada iyo gudiga kulligood waa mahadsan yihiin hadduu Ilaahay madna koobka oo qaadayna ma sidaan rajaynayno insha Allah aad baan rajaynaa insha Allah Hamsi kooxdeba taageersantay maanta which team you supported White Stars White Stars وحافظة كم هذا what area Tottenham yeah what's your name Hisham yeah Hisham which team are you supporting Zaman my team what's the name of your team White Stars White Stars so are you going to win the next game I think I'm bringing it so ayga waxa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Maxamed waxaan ka mid ahay asaasayaasha ururka Rice qolada tournament kan organize gareynaysa waa idinka arkaya maanta dhalinyaradii waxay isku keenay halkan Wood Green Harangay waxa loogu talagalay dhalinyaradu ay isdhexgalka bulshada ku sameeyaan isdhexgalaan dhalinyarada Soomaalida abadanaaba ay isku bartaan ay iyagu ay iska gartaan dadka kale kubad tournament aad u qurux badan ay ku ciyaaraan marka maanta marka hore waa fun day oo loogu talagalay in bulshada isku keento oo dhalinyarada Soomaaliyeed isbarto waxyaabaha dhibka ugu badan London ka taagan waxa weeyaan dhalinyaradu badana xaafad bay isku dilaan xaafad bay colaad isku qaadaan marka wixii aan rabaan meesha ka saarno maanta waxa joogta Wood Green waxa joogta Tower Hamlet waxa joogta West London South London meel kasta oo London ilaa Bristol la weyn oo looga yimid waxaad isku xidhaysaan ujeedadii waxa weeyaan isku xidhaan dhalinyarada meel kasto ay ka yimaadeen ay soo bartaan waa inay dhawr koox isku leeynin ay koox isku leeynin oo ay isku dhexgalkay sameeyaan dhinaca kalena dhalinyaradan waa dhalinyaro dhisan oo kooxalaho xaqii kubadda marka laga eegana waa dhalinyaro mar walba isla ciyaara marka meesha waxa ka baxaya dhalinyaradii awal aan ka cabsan jirtay inay xaafad u gudubto dhinaca kalena waa dhalinyaro awal bay siqaano oo liigaga isku arka hawl wanaagsan baad haysaan aad iyo aad baad mahadsantahay magacaagu waa maxay hello magacaygu Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdiraxmaan Ismaaciil oo yaad maanta taageeraysaa Alan Sarr yeah ma sha Allah how old are you Sagal jir baad tahay ma sha Allah Farid my name is Nasir Abdullah I'm playing for what area are you from YC yeah West London Yeah. Okay, do you think you're going to win the tournament? Yeah, of course. Yeah? Yeah. 100%, yeah? Yeah. Inshallah. All the best. A team from Croydon, deep south. Well, really good players, really good youngsters. A team that formed within the last year. They come together. Within a year, they're playing good football, good chemistry. And yeah, well, it's just a new team. And we're seeing how far we can take it. How many games do you play so far? This is our second game. First game we lost our first game, but we're trying to bounce back. When it happens, we're trying to bounce back, and inshallah, it's 0-0. Yeah.
right now. Yeah. Still 10 minutes to go. Yeah. Hopefully we get a goal. dabka waxaa halkan taagan coachka weyn ee cali oo ku sugan daawanayana finalka ciyaarta finalka cali gameka maxaa kaaga baxay والله جيمك wax fiican aan oo baxay ilmo dhalinyaro isku yimaadeen maanta waxay ahayd maalin oo ilmaha dhan ay faraxsan yihiin so ma sha Allah wax kasta si fiican ku dhamaatay hadda finalka daawadeynay oo Al Ansari ku badisay 2-1 ma sha Allah si fiican ay wixii u hagaageen waka imika halkan waxa ila taagan Lejan Aynaawi oo isaguna halkan maanta aanu si kadiisa ku kulanay Aynaawi oo maanta bal naga hor joogayo wax ka socdo meesha ما شاء الله aad iyo aad baan waxaan u hambalyeynaya in alaaliya intii soo qabanqaabisay giimankan la ciyaari doono oo runtii aan hubo in ay nahno dahabshiil waa ka kow oo asaguna maartay dee responsible gareeyay ama hawshan in badan ka qaatay dhalinyarada TV-yada iyo warbaahinada ee halka joogan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigu TV-ga qaranka ahay runtii ee Somaliland oo aan halka u jooga ama aan goobjoog uga ahay kubadahan ciyaarahan soconaya waxaan leenahay bulshadeena yaryar iyo dhalinyaradeena haddii aynu sidaas oo kale maalin walba isugu keeno wax badan baa ay ka faa'iidayaan isbarashay ka faa'iidayaan isdhexgal bay ka faa'iidayaan waxay ka faa'iidayaan qofba meesha uu joogo iyo halku kaga haboon yahay in uu isgaranayaan xitaa markay kubada isugu yimaadaan markay maanta kala wada ciyaaraan berito waxba ugama baahna baasaskiisa isugu dhigayeen qof waliba halka ka ciyaaray iyo qofkaasi waxa uu yahay marka waan idin hambalyeynaya kale wadanka socotana way kaga mashquulayaan wadankan dee aynu joogno waad ogtahay marka waxa weeye walaalay ku noqonayaan way isu soo hiloobayaan yani aad iyo aad baan arintan u soo dhaweynaya walaal waxaan leeyahay insha Allah bidnillaahi kariim hawshan waynu kordhinayna waynu sii wadanayna isku duuban wali waxaan noo socdaa taabshiil kaabkii aan 16ka youthka ka socday maanta 16 July halka waxaan la joogaa adeero Axmed Sheel waa ciyaartoygii hore qaranka taariikh badan uga soo joogay ciyaaraha maanta in la nasiib u yeeshay inuu dhalinyarada daawado under 16 kaalan ku ciyaaraysa marka hore adeero ka waran koobkan inta ka soo daawanaysa goorahan dambe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أدير ترتن كني هذه آد في عيني لأن يردنا إن سدا لوجهيه هو واجب عائلتها يرجع معلمين تأي مامولياش بصارا سيدا دبنا سبورت وحو آد وهي وحن أردم مكاحلية marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii aan madaxda u ahay hadda iyagu madaxee macallimiin iyo maamulayaal ah ee maantana igu marti qaaday inaan koobka u bixiyo tartankanna abaabulay aad iyo aad baan u ammaanaya Just to say congratulations to the winning team, Wood Lane FC. Thank you so much for coming out, enjoying the event, winning, succeeded.